munaasabadan loo sameeyay furitaanka shirkadda caalamiga ee Mason Engineering Service waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada Somaliland oo ay kamid ahaayeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha boostaha iyo isgaarsiinta ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga caafimaadka qorsheynta qaranka hawlaha guud tamarta iyo macdanta iyo wasiir ku-xigeenada wasaaradaha hawlaha guud iyo gaashaandhigga xogayaha madaxweynaha mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale oo ka socday shirkadaha kala duwan ee dalka waxa ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Abdigaas mas'uuliyiin ka socday shirkadda Mason Engineering Service oo markaasi ah mas'uuliyiin sare oo shirkadaasi ka tirsan waxaana ay tilmaameen shirkaddan inay tahay mid caalami ah oo ka qayb gashay wadamo badan oo caalamka ah waxaana ay tilmaameen shirkaddan Mason Engineering Service inay tahay tan ugu caansan dalka Pakistan shirkadaha ugu waaweyn gacanta ku haya ee Pakistan iyo Imaaraadka Carabta sidoo kale waxay gacanta ku hayaan bay yiraahdeen itisaalaad iyo duu oo shirkadaha ugu waaweyn dalka Imaaraadka Carabta dhinaca isgaarsiinta kuwaas oo 12 sano ay ka shaqeynayeen iyagoo 750 hawl wadeen oo dalka Pakistan iyo 150 dalka Saudi Arabia uga hawlgala shirkaddan ay jiraan waxay mas'uuliyiintani sheegeen in shirkaddan ay doorteen in Somaliland ay ka hirgasho maadaama Somaliland yahay biyuri dal ku yaala geeska Afrika kaasi oo xasilooni badan ay ka jirto shirkaddan soo jeedatay sida loo adeegsanayo isgaarsiinta casriga waxay tilmaameen wadamo kamid ah Afrika inay ka hirgeliyeen qaybo kamid ah wireless fixed iyo mobile network Somaliland ay ugu tala galeen maadaama kuwaas ay ka jiraan in sidii loo sii kordhin lahaa dadaal kale ay ka geysan doonaan waxaana sheegeen in Somaliland ay noqon doonto xudun ay ka quudin doonaan wadamo badan oo ku yaala geeska Afrika taasoo ay gaarsiin doonaan tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta casriga ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland Ali Maxamed Warcado munaasabadaasi ka hadlay waxa uu sheegay in shirkaddan ay soo dhaweynayaan amniga iyo horumarka Somaliland ka hirgelina ay soo jiiteen shirkado badan oo soo baratamaya dhinaca Somaliland waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan leeyahay welcome waan soo dhaweynaynaa gacmo furan iyaga iyo kuwa ka dambeeyaba insha Allah way iman doonaan waxa kale oo jecelahay inaan inagu baraarujiyo haddii wadanku yahay wadan degan oo dadkiisu yahay dad sharci yaqaan ah oo wada jira oo nabadooda ilaashada oo kala dambeeya oo low iyo order leh bini'aadamku uu yimaadaa waana loo soo hiloobaa haddii se dadku ay ku sifaysan yihiin dad intaaba lidigeeda dhib weyn bay leedahay sida aynu ka aragno wadamada aynu jaarkanahay qaarkood waxaan leeyahay waa sharaf bay naga lafteena inoo tahay in ammaantii halkan laynaga siiyey iyo aqoonsiga aynoo aqoonsaday inuu nahay dal degan lala maalgashan karo waxaan leeyahay waxay u noqonaysaa ilaahay waa mahad leh laakiin shacbiga iyo dawladda iyo ummadda reer Somaliland ayaan iyaga laftooda ilaahay caawa aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin mandarka u muujiseen caalamka inta dibadda inaga soo eegaysa wasiirka wasaaradda boostaha iyo isgaarsiinta Somaliland Maxamed Jaamac Abgaal oo munaasabadaasi ka hadlay waxa uu soo dhaweeyay shirkaddani waxaana uu sheegay in isgaarsiinta Somaliland ay horumar iyo heer casri ah marayso isagoo wasiirku sheegay in xukuumadda Somaliland ay dhiiri gelinayso shirkadaha imanaya iyo kuwa sii jiraba sidii ay koboc dhaqaale oo horumarineed Somaliland uga geysan lahaayeen waxaana wasiirku sheegay wasaaraddu inay qorsheynayso dhawaano lagu talaabsan doono buu yiri in Somaliland ay yeelato furo cusub oo dhinaca telefoonada khadka dibadda lagaga soo galay iyo aad culeys noo baahay oo aanu la dhowdhownahay insha Allah dhammaan soo gali doon marka aynu isticmaalayna telefoonada waa 252 macnihiisu waxa weey wakiilda Soomaaliyeed halka yani halkan ka soo galayno waa halka waxa ilaahay idinka ka rajeenaya caawa ma oranayo maal hebla balan qaadi waayo kaasoo bedelano Soomaaliland number kale leedahay ayaa insha Allah maalin kusoo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo dambeeyay munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu soo dhaweeyay shirkaddan isagoo sheegay in xafiis maalgashi caalami ah ay Somaliland ka hirgeliyeen taasoo uu tilmaamay in wax weyn ka tari doono ilaa iyo haddana sida uu shaqeynaya ay tahay mid muhiim ah taasoo dhiiri gelisay shirkado waaweyn oo dunida ka caalamka inay Somaliland yimaadaan kuwaas oo hadhowta la filayay in wadamada kale Afrika ay ku sii fidaan waxaana wasiirku uu tilmaamay in Somaliland ay ganacsiga xorta ka hirgelay uu noqday mid beesha caalamku ay si aad u soo dhaweyso xukuumadahana siyaasad aad ay ka door qaateen isagoo sheegay in shirkad kasta oo Somaliland maal gashanaysa ay soo dhaweynayaan xafiiskaasi ay ugu tala galeen wax weyn inuu ka tari doono laga waramay kana muuqatay warbixintii ay nasiyeen shirkad aad u ballaaran oo farsamo fara badan leh haday tahay dhinaca communicationka ama isgaarsiinta ama dhinaca caafimaadka haday tahay iyo qaybo kaleba wax tar weyn oo muuqda dalka ku soo kordhin karta aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa
waxaan xukuumadahan aanu cadeynayna inaanu la shaqeynayno waxa la wixii tasiilaada ama fududeyna waajibaadku nafarayana aanu ka gacan siin doono shirkadan iyo sharaa'iga kale ee caalamkaba intaba waanu ku soo dhaweynaynaa dalka horumarkiisa iyo dhismihiisa ciidina kala qayb galanaysa aad iyo aad baan soo